Soomaaliyeed qaarkood ayaa ku jahawareersan waxa loogu yeeray madaxweyne Farmaajo kadib maanta madaxweyne hore mid xilka uu ka dhamaaday baraha bulshada ayaa dadku u muuqdeen kuwa xaaladan ku cusub dhanna u dhaqaajin lahaa ma jirin wax siyaasiyiin ama mas'uuliyiin dawladda ah oo dadweynaha uga warbixiyay sida xaalku yahay waxaana dadka qaar ay dareemayaan cabsi ku aadan hubanti la'aanta haysata siyaasadda iyo hoggaanka dalka madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi dheer ay VOA la yeelatay ayaa ka waramaya waxa uu aqoonsan yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ugu yeerayo kadib 8 Febraayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda ayuu ahaa 8 Febraayo 2017 ilaa 7 Febraayo 2021 xilkiisii waa dhamaaday mas'uul uma aha maanta Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed intaba waqti ay doorteen ku karaameeyeen ku sharfeen loo dhiibay xilligiisii intii uu jiray oo dhanna ma khalad la'ayn mana xumaan la'ayn laakiin waxaa la ilaalinaya dhaqanka dawladnimada iyo dimuqraadiyadda oo xilligaas sharciga iyo dastuurka ay siiyeen madaxweynaha in loo daayo intuu joogo laakiin xilliga haddii uu dhameeyey dalkiina aanu ka saarin ama sida uga bixi lahaa taladeed aanu haynin in lagu sii daawado oo dalka haddana qar kala dhaca ma aha madaxweynuhu raalli oo ahaanaya muwaadin Soomaaliyeed waay wixii maanta ka dambeeya muwaadin Soomaaliyeed ka mid yahay laakiin tala maanta uu dalkii oo ku sii hayo oo sharciyadeed ma laha Soomaaliya ma lahan dastuur adag iyo waxyaabo badan oo aasaasi u ah ku dhaqankiisa waxaase inta badan lagu wada joogaa isfaham iyo xal siyaasadeed oo maanta muhiim u ah dalka si looga gudbo taagtaagan siyaasadeed sida uu qabo Professor Afyara Cilmi oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qadar dalku maanta runtii marka yani si loo fiiriyo sharci ah ama si siyaasi ah wuxuu ku jira xaalad siyaasadeed oo jahwareera oo aan yani loo baahnayn waayo baarlamaankiina horaa waqtigu uga dhacay madaxweynihina maanta waqtigu ka dhacay oo naxarinta jirta ama dhibaatada jirtaana waxay tahay heshiis siyaasadeedna lama hayo maxaan ku idhaha doorasho oo asaga wax lagu bedelana lama hayo marka ayadoon doorasho lahayn oon heshiis siyaasadeed lahayn ayaa waqtigii dhacay marka runtii waa xaalad aan fiicnayn laakiin waxaan rajaynayaa in hab siyaasiya oo arrintan looga bixi karo la aadi doono waana jiraan habab looga bixi karaa firaaqa siyaasadeed iyo midda awoodeed ayay culimada maamulka iyo siyaasaddu ku sheegeen inuu yahay dib u dhac isla markaana inuu qatar geliyo jiritaanka dal walba oo uu ka dhaco waana sababta xal siyaasadeed loo baadi doono ka hor inta aanan lagu dhicin dhaqankaasi xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire ayaa qaba in madaxweynuhu xilka sii haynayo isla markaana uu yahay madaxii dalka ilaa dalka doorasho ay ka dhacayso in ayadoo dawlad waqtigeedu uu sii dhammaanayo ay suurtageli weydo in doorashada xilligii loo astay ay dhici weydo wax oo cusub ama dhacdo cusub oo ugub oo ama Soomaaliya ku cusub ama adduunka ku cusub maaha wax dhaca waaye Soomaaliya waa ka dhacday in ayadoo madaxweyne xilka hayo doorashadii waqtigeedii uu dib u dhacay wax oo mataqaanaa power vacuum ama firaaq siyaasi oo dhacayna ma jirin doorashada intii ay ka dhammaanaysay continuation baa socday oo mataqaanaa madaxdii joogtaa sii joogtay marka dhinaca dhaqan siyaasadeedkii hore loo yaqaanay iyo dastuurka iyo shuruucda annaka dee aniga dastuurga ay go'aamiyeen marka saddexdaas qodob la eego wax uu uga bedelaanayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi madaxweynayaashii hore ma jirto inta doorasho dhacaysana madaxweynaha xilka hayo oo mataqaanaa continuationka sii wadayo ahaanaya sharciga iyo dastuurka iyo nidaamkiisa waa ka hadlay buuqa hadda jira waa siyaasad waa niman mucaarada oo xukun raba oo kursiga inay fadhiistaan raba haddaba muxuu dastuurka Soomaaliya ka qabaa markuu madaxweynaha xilka hayo uu dhamaado muddaxileedkiisa dastuuriga ah waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Ismaan Qalile oo sharciga ka dhigay jaamacadda Minnesota isla markaana kamid ahaa xeeldeerayaashii dhinaca dastuurka Soomaaliya ka soo shaqeeyay haddana ku sugan dalka Mareykanka dastuurku wuxuu dhigayaa madaxweynaha Soomaaliya
in la doorto muddo 4 sano ah oo ka bilaabata maalinka xilka loo dhaariyo sida ku qoran qodobka 91 ee dastuurka federaalka Soomaaliya marka muddaxileedka madaxweynuhu waa 4 sano weeyi isla qodobka 87 faqradiisa labaad ee dastuurka ayaa waxay dhigaysaa madaxweynuhu dhammaan inuu xilkiisa u gudan doono si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya marka madaxweynaha sidiisaba 4 sano ayuu xilku kaga egyahay marka dabcan dastuurku wuxuu markaa waajib kaga dhigayaa madaxweynaha oo kamid ah xilalka ama mas'uuliyadaha saaran inta uu xilka hayo inuu diyaariyo in doorasho dalka ka dhacdo oo uu shuruucdii loo baahnaa baarlamaanka loo gudbiyo dhammaan adeegyadii loo baahnaa si loo suurtageliyo doorasho xor ah oo xalaal ah in uu fuliyo waajibaadkiisa dastuuriga bay kamid tahay marka dastuurku wuxuu ka qabaa in 4 sano ay ku eg tahay inkastoo ay taagan tahay xasarad siyaasadeed haddana waxay dad badan rajo ka qabaan in dadaalada beesha caalamka ee dhinacyadan la iskugu keenayo ay shaqeeyaan isla markaana lagu gaaro xal dalka gaarsiiyo doorasho